السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال وكلن كيني سيداد فرديادي أي نوغو مقعدرني دايوغا محمد علي جبرتي يدين حماضة الشيعة قارهان قيبتي دايوغا محمد علي جبرتي أيينو كل حجرني waxaynu mid soo qaadanay axaadiistii nabiga kaleey salaatu wasalaam qaarna axaadiis baan abuuray ahayd oo daciif oo nabiga uusan oranay kaleey salaatu wasalaam qaybna ay axaadiis saxiix laakiin oo suura xumeeyay waxaan rabaa inaan baraarujiyo runtii wixii uu sheegay oo dhan isma laazimin inaan ka wada daba tago sababtoo ah qaarkood wax muta in laga daba tago ma aha waxaan halkan insha Allah ta'ala xalaqadan ku qaadan doonaa hal xadiis oo kamid ah xadiista saxiixaynka oo isku dayay in uu suura xumeeyo wa xadiiska lafdigiisa Bukhari aw leeyahay hada lafdigan akhrin doono Bukhari baale min xadiis Abi Hurayra في صحيح البخاري وغيره قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تقول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول الابن اطعمني إلى من تدعني فقالوا يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا هذا من كيس أبي هريرة حديث كان معنيه سينتك واضح ويه صدقاتك هذا يفضل جيدا waxa marka xadiiska jumlada u dambaysa ay tahay in Abu Hurayra lagu markuu wariyay maadiga warka nabiga ka maqlay nabiguna kaleey salaatu wasalaam aw yiri saxaabiguna aw yiri marka ma hada min kiisi Abi Hurayra waa jaabka Abu Hurayra waxaan rabaa marka insha Allah ta'ala inaan dhowr qodob isdul taagno iskaalka horta wajka iskaalku waa halka hadalka Abu Hurayra aw wariyay kadibna markii la weydiiyo leeymaada rasuulka ka maqlay أو يلمي وكيس كأبو هريرة أما وكيش كأبو هريرة كيس أفصوالي وكيش سو كوفا السرية سو تشاب معها وأنا إسلاميشي عدو إسلاميشي وكسوقات وحن ربا مركع دور قضب إن أنت المعامة إن شاء الله وحن أبو هريرة ليه هو من كيس أبي هريرة وامحي وقضب وإنت أنا أقليسه مقالقات حوق بدن ama tira badan oo uu sameeyay markuu istishkaalkan sameeyay mudraj wax leeyahay ma jira buu yiri waa diiday wuxuu yiri kalaamka kani ama hadal Abu Hurayra uu noqon karaa ama hadal rasuulka uu noqon karaa wax u dhaxeeya labada male wuxuu aad maartay ugu celceliyay seen uu ogaan karaa hadalkan la sheegay iyo macnihiisa iyo yaa kala leh qaybtee nabigu leeyahay qaybtee Abu Hurayra leeyahay asagoo cadeynaya markasta ku celcelinayo leh Abu Hurayra been sheegay oo nabiga ku been abuurtay kaleey salaatu wasalaam hadalkiisina waa kane ila daawo markay xalilayeen oo ay rabeen inay arinkan beenta ay qiil u daydayaan waxay yiraahdeen mudraj weeyaan inta dambe oo maxay ahayd mar'atu iyo inta ka bilaabata ayaa mudraj oo inta ayuu Abu Hurayra maxay ahayd ayuu ku daray laakiin inta hore nabigu ka maqlay okay su'aashu waxay tahay sidee baan ku kala garanaya ilaa hadalkii Abu Hurayra dabadu iska galiyay wixii dhan hadana wuxuu yiri waa jaabka Abu Hurayra sideen ku kala garanaya aniga aan meesha joogin inuu warkani war rasuul yahay kulligii iyo inuu war kulligii jaabka Abu Hurayra laba mid bay noqon inuu kulli warka jaabka Abu Hurayra haduu jaabka Abu Hurayra yahay muxuu u leeyahay nabiga yiri ilaan qaala nabigu ku bilaabay sheekadiisa nimayo aqliga waxa wanaagsan inuu shaqeeyo hadii uu dheelka ahayd oo ku kaftamahay man nabi Muhammad alayhi salatu wasalaam ayaa lagu kaftama ajiib xaqiiqatan waa wax ajiib leh waa arinta labaad riwaayada labaad oo beenta ka muuqanayo xalaqooyinkii horena aan ku soo ishaaray bal taasna qabsada oo xal u raadiyo mudraj iyo sheeka bareleedaas intii loo kaadiyo asaga markasta waxa meel u yaala oo u go'an Abu Hurayra inuu beenaalay yahay nabigana ku been abuurtay kaleey salaatu wasalaam waxaan rabaa marka inaan tilmaamo kow sida asaga hadalkiisa ka muuqata xadiiskan waxa ku jira idraaj ama mudraj baa ku jira laba su'aalood baa marka muhiim ah inaan ka jawaabno
inteebaa mudraj ah su'aasha labaad tawku celceliye oo ah sideen ku garanaya inuu mudraj yahay wixii waa kan oo dabadu isugu qabtay uu ku wareeray moogta sideen u garanaya inuu qaybtan mudraj yahay qaybtana nabigu leeyahay kaleey salaatu wasalaam sideen ku garanaya labada jawaabood aynu baahna waxaan ku dari doonaa oo kale Abu Hurayra dadka ma u cadeeyay qaybtan inay hadalkiisa tahay oo uusan nabigu lahayn kaleey salaatu wasalaam uma baahni marka hore mudrajka inaan taariifino in aan maartay qaybihiisa sheego habka lagu garto inaan sheego waxay la tahay waxa soo dhan wax dalabatul cilmigu ka dheregsan yihiin way laakiin asagu marna wuxuu taagan yahay mudraj ma wajiro waa been la dhoobdhoobay iyo waa sheeka barelay buu taagan yahay marna wuxuu taagan yahay dhinaca kale oo ah sidaan ku garanaya inuu mudraj yahay waxaan ku leeyahay waxaad ku garanaysaa inaad aqoon u yeelato baratid kutubta baro akhriso culimada hoos fadhiiso cilmiga baro dalibul cilmi saxan noqo waad baran insha Allah taa waa qodob waxaad kale ku baranaysaa xadiis marka rabtid inaad daliishatid ama aad rabtid inaad xukun ka dhalisid inaad riwaayaadkiisa kulbisid oo aad hal riwaaya la ordin baad ku garanaysaa taa marka inta kaga imaado waxaan leeyahay kow Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu xadiiska uu wariyay laga bilaabo hadalka afdalu sadaqati ma taraka qinan واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول انتهى حديث النبي عليه الصلاة والسلام تقول المرأة إما أن تطعمني وإما وحي كدن بيانا وقولك أبو هريرة وحاد ويدين كتامرك أبو هريرة ددك ما وعدي هذا الككني إنه هذا الكيسي وسنكين نبي قاهي وحان كلها ها لكن ننكي أنا قيني دي علو قرد شيحيا أنا سوق هذا دور رواية مسند إمام أحمد وحا كسوغان حديث رقم كيسو يهي 10,000 iyo waxa la yahay xadiiska raqamkiisu yahay 1078 inuu yiri sanadkan hadathana Abdul Malik ibn Amr qala hadathana Hisham an Zayd an Abi Salih an Abi Hurairah عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصدقة ما ترك عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال أبو صالح وهي سئل أبو هريرة من تعول من تعول maxaa laga wadaa macnaha ma man taul qala Abu Hurayra wuxuu imraatuka taqulu aq'imni ila aakhiri xadiisku bukaani marka riwaayada Ahmed waxa ku cad marka su'ila Abu Hurayra waxa la weydiiyay ma man taul macnaheedu maxay tahay ama cid aad caawsho oo aad mas'uulka ka tahay oo nafaqaysay waayo waa qodob halka waxa inoo cad Abu Hurayra inuu inoo cadeeyay asagana la weydiiyay radiyallahu ta'ala anhu wardaa إمام البيهقي وحوريي رقم كحديث كشان 10711 أو بكر النيسابوري أو كوري في الزيادات على كتاب المزني رقم كأه لح بقول يصدن يسديد طرق تربضا بيكوريين وكالدوان دمانتون السوس ولا بيشوانا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبي صالح عن أبي هريرة إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال أبو هريرة بيهقنا ساسا كتالة زياداتك أو بكر نيسابورنا ساسا كتالة تقول المرأة أطعمني وإلى آخره هذا الكلفت جيسي وهل كان قال أبو هريرة أيا كتالة إلا ذا أتقرد الشيحين وحكوه عن ملكي آذربتين هذا وحكو ليسيد الله صور دي كليا متصد هذا أن كدره إمام النسائي وحكوري في السنن الكبرى 9,166 من طريق مغيرة بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول قال زيد فسئل أبو هريرة من تعول يا أبا هريرة أبو هريرة من تعول معناه محيط أما وأيدتك من تعول قال وحي امرأتك تقول أنفق علي أو طلقني وعبدك يقول إلى آخره هذا الكلام كدي هذا أنت كنت يسنه وإن أنت كوكبنا وإنه قفلنته صوته وحي نوعد أبو هريرة رضي الله تعالى عنه الرواية البخاري الرواية ذنهين إنه كنت تفسيري وإنه قعدي لينورا كلا ساري قيبت هذا الكيساية قيبت هذا الكنبي عليه الصلاة والسلام وحش قالوا مجرى مركب لكن لا بقى ضبط كلام كدريا قضاء كلام كدريا وحوية أحاديث أبو هريرة oo si cad u tilmaantay riwaayada inta nabiga oo kaliya iyadoo wariyay Abu Hurayra oo uusan ku darin qaybtan tafsiirka ah dambe mudrajka saddex waji lagu gartay suyuud alfiyadiisa oo ku sheegay oo matniga oo saddex oo ku sheegayna waxa kamid ah in imaam aymada kamid oo cadeeyo iyo in raawiga laftigiisu cadeeyo iyo inay ku soo aroortay riwaayaad kale ayadoo mufassal ah
hadda waxaynu soo marnay iyadoo Abu Hurayra cadeeyay oo hadalku inuu hadalkiisa yahay oo cadeeyay qaybta mudrajka ah waxaynu haddana tilmaami doonaa iyadoo ku soo aroortay isla riwaayaadka Abu Hurayra iyadoo awsan la soconin qaybtii mudrajka ahayd waxaynu u dambaysiin doonaa in sheegi doonaa axaadiista tirada badan ee saxaabaduna wariyeen sidoo kale oo tan Abu Hurayra la mid ah oo ayadana aysan ku soo aroorin qaybta aw Abu Hurayra ku daray oo ah mudrajka waxaan u dambaysiin doonaa marka aimada cadeysay ayaguna xadiisku inuu mudraj qaybtaasi tahay hadaynu fiirno mesela riwaayaadka Abu Hurayra xadiiska laftigiisa ah isla markaana waxa la yiraahdo aysan la soconin qaybta mudrajka waxa kamid ah xadiiska Abu Hurayra oo Imam Ahmed uu wariyay al-yad al-ulya khayru min yad sufla wabda biman ta'ul intaas oo intii xadiiska nabiga kaliya Ahmed baa ku wariyay fi musnad Abi Hurayra رقم 7854 شعيب الأرناؤوطي وحي وسنده قوي سند كيس وسند قوي waxaa kamid ah Ahmed laftigiisu inuu wariyay min xadiis Abi Hurayra lafdigan laftigiisa uu ku wariyay 8230 saxiix waxaana saxiixiyay sanadkiisa Shu'ayb al-Arnaauq asagana sidoo kale waxa kale oo Imam Ahmed isla laftigiisu uu wariyay raqamka 10155 isla xadiis lafdigiisa intaan yahay oo inta kaliya ku jooga bisnaadin saxiixin ala shardi shaykhayn bal iska daaye markay intaas oo kaliya tahay waxay kamid tahay thulaathiyaadka Imam Ahmed fi musnadihi waxaan ku xijinayaa riwaayaat ahadiis saxaabad tira badan oo isla xadiiska laftigiisa warisay ayagoo qaybtaana aysan la soconin oo iyaduna daliil u ah in hadalka Abu Hurayra oo mudraj yahay inuu asagu mudrajka cadeeyayna waan sheegnay waxa kamid ah saxaabada warisay biduun idraajka Abu Hurayra oo san la soconay Abdullah ibn Umar ibn Khattab Bukhari buu ku yaalay xadiiskiisu 1429 waxa kale wariyay isla muwaaqta Imam Malik 1813 Sunan al-Kubra an-Nasa'i buu ku yaalaa 2324 waxa kamid ah Hakim ibn Hizam radiyallahu ta'ala anhu Bukhari baa ka wariyay 1427 waxa kamid ah Sa'd ibn Abi Waqqas waxa wariyay Musnad Bazzar ayuu ku yaalaa 1202 waxa kamid ah Abu Umamah al-Bahili Mu'jam al-Kabir ka Tabarani buu ku yaalaa 700 waxa kamid ah Samurah ibn Jundub iyo Imran ibn Husayn labada waxa ka wariyay isagoo iyaga wada socda Tabarani fi al-Mu'jam al-Kabir 14736 Aisha bint Abi Bakr Siddiq waa kamid ah amthal al-hadith li Abi Shaykh al-Asfahani 88 raqamka ah waxa kamid ah al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardaahu ayaa isaguna wariyay isagoo idraajka uusan la soconin 89 raqamka ah intaas waxay ku tusinayaan saxaabada rasuulku inay xadiiska kan wariyeen biduun idraaj waana mid kamid ah waxyaalaha loo daliishado xadiiska idraajkiisa habka loo garto inuu riwaayaad kale ku soo arooro riwaayaadka Abu Hurayra waa soo marnay kuwana waa soo marnay waxaan u dambaysiinaynaa laba qodobka koobaad aimada cadeysay in hadalka qaybtan dambe uu mudrajka yahay waxa kamid ah khatimat al-huffaz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala fi Fath al-Bari juzka 9 safxada 501 wuxuu leeyahay qawluhu min kisi بكسر الكاف أي من حاصله إشارة إلى أنه من استنباطه مما فهمه من الحديث المرفوع الواقع ووقع في رواية الأصيل بفتح الكاف أي من فطنته أي الإمام رحمه الله تعالى وحاكم الإمام الجليل كابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى سيدة كتاب على كتابك زاد المعاد في خير هدي العباد في هدي خير العباد جزء شنات صفحة 4 بقول يصدن يثقال وحاكم محدث كوين عصري شيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى إرواء القليل كجزء صدحات صفحة 6 بقول يتطبيق وحاكم أئمة عديسي إنه مدرج هذا الكدنباء الشيخ المحدث الفاضل شعيب الأرناؤوط أيا كمده وحنيلي تعليق أو كله صحيح ابن حبان جزء سديدات صفحة بقول يأفرتني يسقال هذا كان صوص عدا قوله تقول امرأته كذا وكذا هو من كلام أبي هريرة أدرجه في الحديث حديث كو إدراجه كنت يا جبا waxa weey marka in la yaahdo hadalkii a'imaduna waa kaase ulaa'ika aaba'i fajini bimithlihi idha jama'atna ya jariirul majami'u taas macnaheedu waxa weey xadiiska kow Abu Hurayra sheegay inuu qaybtaas mudraj tahay oo hadalkiisi ay tahay labo waxa cadeeyay riwaayaadkiisa kale ee aysan la soconin saddex waxa cadeeyay riwaayaadka ahadiisa tirada badan ee saxaabada laga wariyay afar waxa cadeeyay a'immada muslimiinta ee si sariixa u sheegay in xadiiska qaybtaasi ay mudraj tahay khulaasada kelmadatan iyo fadhiga aan ku gabagabeynaa waxa weeye
كو إنينو قرني معرفة إيا قيبت إنينو قرني قيبت مدرج كي حديث كجرته لابو إنينو قرني وحا أبو هريرة أوليه هاي وكيس من كيس أبي هريرة كأهات إني تهي قيبت الدنبية جملة حديث كأوضن بايا وحا كلا أو صدحاد أبو هريرة أسجل لفتجيس إنه يعد هذا الكينو كلا عديسي إنه كلا صارتي وحا أفر علماء المسلمين تا أنا وإنتان كأوجهاي أحاديث الشرح ذي سو جوريسي عد أنتو كقر صومالي إدراج كان هذا الكنت لوا بين أبو هريرة سمي وذات كان كهر هري الله ما أرد صوت عدد كل ما أهان شريانه قف عالمه الروايات كورهيا وحديث كأنتو الروايات كيسوس كان قيبتي مدرج كاي قيبتي كلا جرجرنا iyo qof baranaya oo aqoonti markaa raadinaya oo culimadu tusayaan labadaas ahaan jireen mid labada u dhaxeeyo culimadiina aan ahayn caamadii wax baranaysana aan ahayn riwaayo intuu la ordo la gabgabiyirtiina meel cilla ay la gashayna wax la yaqoon jiray ma aha waxaan u dambaysiinayaa xadiiskaas macnihiisa way naga tilmaanay Abu Hurayra been sheegayna kuma taalo ama Abu Hurayra been sheegayna wax meesha ku jira ma aha waxaan ku waalinayaa walaalkay jabarti intuu Ilaahay ka baqo oo diintiisa u noqdo oo islaamnimadiisa saxda ah u noqdo in uu ku dadaalo waxa uu sheegay inuu Allah kaga cabsado hada wabillahi tawfiiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh halqadani halka inoo joogto